السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة على ملك السجوك تنكسر وجنال كيجا بشر محمد برداري برنامج كساك سوق كليبس يرتدون كسوة تورك وحساب أنا كسوقة يربحنا حسلو قوتهم لك السوقة ورك دنك السوق أنا وحاكم ذا واحدة بايرن مونجين أي الله صوصي عندهم أتلتيك مدريد هدي الدافع وعيارها أولى شو دنك فرانسيسكا لوكاس هرنانديز وسدح الأتنجرة هل أيارت كان وحنا حد الجن اللقو قيمة يدون جار زيت المليون أو يورو إن اللقو كان سلكرة قندراسكو كل جرو كهذا أتلتيك مدريد warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Napoli ayaa ugu yabooheysa xidiga lagu magacaabo Mauro Icardi adduun gaaraya 12 milyan oo euro sanadiiba haddii uu ogolaado xidigan inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Napoli plus Inter Milan ayaa door bidaysa 20 jirkan u dhashay wadanka Argentina weerarkana kaga ciyaara kooxda inay ka iibiyaan kooxda kubadda cagta ee Benfica Juventus warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Manchester United ayaa qiimeynaysa 30 jirka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Croatia qadka dhexe u maareeyay Ivan Rakitic oo mustaqbalkiisa shaki weyn uu ku jiro kaas oo laga yaabo inuu kooxda faarujiyo warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Arsenal ayaa qorsheynaysa in 25 milyan oo gani ay ku soo qaataan xil ciyaareedkan Celtic oo 20 jirka ka tirsan ee Scotland daafac dambe kaga ciyaara ee Kieran Tierney waxaana ay doonayaan in xidigani ay soo qaataan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah goolhayaha Manchester United ee xulka qaranka Spain David De Gea oo 28 jir ah ayaa la warinayaa in mustaqbalkiisa xidigani uu yahay mid aan loobin kooxdiisu ay doonaysaa in heshiis cusub kooxda uu qalinka ugu doogo maadaama qadaraaskiisu uu dhacayo waxaana ay u soo bandhigayaan in isbuuc ay siin doonaan 350,000 oo gani haddii uu ogolaado in heshiis cusub kooxda u saxo xilli xidigani mustaqbalkiisa kooxda aan loobin. Ibrahim Ramsky waa inta tan kulan daba nabadgelyo.